دشيني ورقة ضيحها يسري xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambaynin bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka maan hadal oo hadahayo kale maalin kastoo jimcaha aad kala socotaan dhammaan xarumaha daljir ee gobolada dalka barnaamijka maanta waxa uu idinkaga imaanayaa istuudiyaha daljir ee boosaaso xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn cod u qaaday dhawaan mooshinkii ka dhanka ahaa dhismaha baarlamaanka Jubba kaasoo 3 jeer oo hore uu dib u dhac ku yimid codeyntiisa kulanka baarlamaanka oo ku fulmay jawi degan ayaa markii la guda galay ajandaha isla markaana guddoonku uu amray in la tiriyo tirada xildhibaanada fadhida si cod loogu qaado mooshinka ayaa buuq uu ka dhashay waxaana markii hore tirada soo xaadirtay ay ahaayeen 150 mudane hase ahaatee waxaa markii dambe xarunta golaha shacabka ka baxay xildhibaanadii ka soo horjeeday mooshinka waxaana taasi ay dhalisay buuq gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ugu shir gudoominaya kulanka ayaa howlwadeenada ku amray inay saf u tiriyaan xildhibaanada waxaana markii dambe la shaaciyay in ay joogaan 142 mudane kuwaasoo markii dambe cod gacantaag ah u qaaday mooshinka 130 mudane ayaa u codeeyay mooshinka inay taageersan yihiin halka 4 xildhibaanna ay diiday 6 xildhibaan ka aamustay sidaas uu guddoonku shaaciyay in mooshinka uu ansax yahay haddaba arrintaasi waxaa ka soo horjeestay oo gaashaanka u daruuray maamulka Jubba oo sheegay in sharci darro lagu sameeyay iyaga oo intaasi ku daray in xiriirka ay u jireen dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in mooshinkaasi uu sharci darro yahay isla markaana iyaga ay ka soo horjeedaan haddaba maxaa saameyn ah oo uu arrintaasi ay ku yeelan kartaa horumarka maamulka Jubba sharciise ma tahay in baarlamaanku uu ka qaado mooshin ka keeno mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Jubba waa xubinta dooda ee maanta waxa igala qayb galaya xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya kana mid ah dadka taageersanaa mooshinka iyo Xasan Isxaaq Yacquub Geesa Cadde oo ah wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubba horena uga tirsanaa xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waxa uu joogaa Muqdisho wasiirkana waa wasiir Geesa Cadde waxa uu joogaa magaalada Kismaayo sidoo kale waxa dooda nagala qayb galaya sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac oo isagana ku sugan magaalada Qardho dhamaantiin soo dhawaada barnaamijka maan hadal aada u mahadsantihiin waxaan ku hormarayaa marka ugu horeysa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso xildhibaan Jeeso waad i maqashaa marka hore waan la soconaa maraaxishii uu soo maray arrintan ay soo martay iyo mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka Jubba hase ahaatee bal haddaad yara dib noo xasuusiso maraaxishii uu soo maray iyo waxa keenay in mooshin laga keeno maamulka Jubba awlan waxaan salaamayaa walaalahayga ku jira qadka Geesa Cadde iyo walaalkiisa Qardho joogo aqoonyahanka iyo Aamino adiga iyo dhammaan bahda futaxan raadiyo daljir dhegeysta iyo dhammaan reer Boosaaso oo aan filayo si aad inay noo dhegeysanayaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan mooshinka asbaabaha keenay ayaan rabaa in sharaxaad yar oo gaaban aan ka bixiyo Aamino waa la socotaa walaal xildhibaanada Soomaaliyeed markii la soo xulay waxaa loo qaybiyay dastuurka dalka isaga ayaana markii loo qaybiyay ummadan Soomaaliyeed inay ku dhaqaan wuxuu ahaay loo igmaday oo ay raacaan ummad kastaana dastuur bay leedahay dastuurka xildhibaanada maanta jooga ma ay noqon inkii xildhibaanadii anigii walaalkay Geesa Cadde aan ka mid ahayn ma aan qorin waxaa lagu soo qoray roadmapkii kumeel gaarka looga baxay inta badan qoraalkiisa garooba ayaa lagu dhamaystirayay waa la socotiin madaxdii dalka uu kamid ahay Sheekh Shariif uu kamid ahay ra'iisul wasaarihii hore ee haddana madaxweynaha Puntland Cabdiweli baarlamaanka guddoomiyihiisii hore Shariif Xasan mihigan la yiraahdo raggaas ayaa roadmapkaas sameeyay saxiixay dastuurka baalashiisa waa saxiixooda ayaa laga arkayaa
waxaa ku qeexan gobolada dalka iyo degmooyinkooda la aqoonsan yahay waa kuwii 90kii dawladda militariga ay ka tagtay dastuurka markii noola qaybiyey ee ilaaliyana la yiri ilaalihi kale noogulma sinine waad ogtihiin kitaab quraan ah ayaa anagoo quluubtayna ay la jirtay ilaahay dartiis ayaan gacanta u saarnay inaan ku xadgudbin ciddii ku xadgudbaysana aan ka qabanaa waa nagula dhaariyey waxaana la isku dhaariyey danta dalka dadka iyo diinta iyo dastuurka dalka u yaala inaad ilaalinayso marka anagoo gudinayna waajibaadkaas kadib markii magaaladii Kismaayo ay dhibaato badan ka dhacday ogtihiin hal habeen 6 madaxweyne laga doortay yascad markaas walaalkay waxaan filayaa xamar uu ila joogo 6 madaxweyne hal habeen laga doortay khilaafkii dawladda soo dhex gashay iyo dawlado kale oo dirisa waa tii inta la wada waday la geeyay Addis Ababa la yiri dhammaantiin qaladaad ku jirtiin 5 kamid ah waxaa la yidhi idinka bal raalli ahaada arrintaas loo sii igmado Axmed Maxamed Islaam oo loogu magacaabayo hogaamiyaha Jubba waa heshiiskii ingiriisiga Addis Ababa hogaamiyaha Jubba laandi xataa waa laga reebay hogaamiyaha ku-meel gaarka ee Jubba ilaa 2 sano oo ku eg Agoostodan 27keeda bisha Agoosto soo socoto 27keeda insha Allah taas waxaa cadaan ah in meeshaas wax loo dhan yahay oo ummadii Soomaaliyeed ay ku heshiisay inayna ka soo baxo waxa kaliya ee ay ku sii joogeen waa heshiiskii Addis Ababa qodobkii sideedaadna uu dhigayay in Axmed Maxamed Islaam loogu yeero hogaamiye walaal waxaan ku sheegayaa dastuurkeena ma dhigayo in madaxweyne magacaabi karo ummadda Soomaaliyeed aad inay ii dhigaystaan jeclaan lahaa madaxweyne ma magacaabi karo Axmed heshiiskii ingiriisigii oo ahay Addis Ababa ayuu hogaamiye ku noqday hogaamiyaha ku-meel gaarka ilaa 2 sano Agoosto ay ku egtaan marka kulaaba maayo waxaan rabaa marka annagoo intaas oo dhan ka duulayna degmooyinka la aqoonsan yahay waxa waaye jubbooyinka waa la yaqaan degmo la yiraahdo Salagle oo degmooyinkii 85 ahaa madaxweyneheenii hore Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif ay saxiixeen ay kamid tahay kuwa walaaliye kamid tahay marka waxay xaraantimeynaysaa in dad wax loogu qaybiyo degmooyinkii kale ee jubbooyinka ku yeel ee la xaraantimeeyay oo bandow ku jiro iyada laga soo dhex qaato wax loogu qaybiyo waxay xaraantimeynaysaa baarlamaankii aan kala dirnay xildhibaan Jeeso aad u maasan tahay in madaxweyne loogu yeero Axmed Islaam waxay xaraantimeynaysaa heshiiskii Addis Ababa ee ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay oo ay tahay inaan ilaalin waaya dibaan ku soo laabanay iyo cunfiya oo arrintaas loo sameeyay mala waa inta waa tahay xildhibaan Jeeso aad u maasan tahay dibaan kugu soo laabanaya waxa qadka isna ku jira magaalada Kismaayo wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubbaland Xasan Isxaaq Yacquub Geesacad wasiir waad maqlaysaa sideed u aragtaan idinka mooshinkaas idinka dhanka ah inkastoo go'aankiina la wada arkay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رجع يقول جرى خطك وما سنتين ميديا دولة جولات راديو دلجة والسلام يا سيدا نوغسو دويسين ميديا نويدا كذا ما دعلينا يا fursadan qaaliga oo aad siiseen aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa mid kale waxa weeyaan Jeeso waa maqlaayay hadalkiisa horta baarlamaan la dhisay dawlad goboleed loo dhisay dawladda tan horta waa dawlad goboleed Axmed Maxamed Islaam hogaamiye Jubba ma aha adiga naftirkaaga gabadhaada hadda waxaad leedahay dawladda Jubba ayaa la hogaamiyaha Jubba ayaa lahayd ma aha dawlad goboleedka Jubbaland way horta sidaa u qaado noo dhaxay aniga iyo Jeeso
wixii naga dhex jira noo dhexeey qosolka bihii luu galaayo ha u hiilin wixii jiro dhab ah rasmi ee naga duub taa sidaa waaye waa mahadsan tahay midda kale baarlamaanka 75 dowlad goboleedka Jubbaland loo dhisay waa sharci dowladda dhexe baarlamaankeeda intuu fariisto waa xaaraan ma dhihi karo sharcina ma aha dastuuri ma aha dowlad goboleedka Jubbaland dastuuray samaysanaysaa dowlad goboleed waaye tigsiga 16 unbaan wax isku darsan doona waxaan ku heshiinaa isku darsan doona waxaan hadda ku heshiinina waa waxba dhib ma leh haddaan dagaalno kala tagnana waa kala tagnay nabad allah yeelaan leenahay waayo sababta dalku waa degaan baan wax ku samaysanay jeesow ninka la yidhaahdo nin walaalkay oo saaxiibkay waaye baarlamaankaan iskula jiri jirnay nin gaal jecel waaye gaal jecel halka kan waa joogaa wasiiruu leeyahay wasiir laakiin qabiilka xoga anshax barnaamijka ilaali ku fadhinaay qabiilaan ku fadhinaay dhegeyso adiga haddaad la jirtaan khadka iga jar haddii kale si wanaagsan ii dhegeyso barnaamijka anshaxiisa inaa ilaalisaa jeclaan lahaa oo degaan ku wasiiruu leeyahay maay ku-xigeenka dekaduu leeyahay nin gaal jecel waaye wuxuu ka soo galaa beledweyne Jubbaland shaqo kuma leh marka 60 nin oo uu sheegaayo inay ahaayeen madaxweyneyaal wax asiga dabada ka riixay dowladda federaalka ee dabada ka riixaysay ahayd waa soo afjarnay Ethiopia markii la tagay hal xaaraan ee midig xalaal ee ma dhasho wixii xalaal ee waa soo xareer Axmed Madoobe ahaa waxaa lagu doortay 800 oo erga ayaa dooratay Axmed Madoobe madaxweyne waaye Jubbaland uu yahay ee dowladda dhexe uma aha dowladda dhexe waxaa madaxweyne u ahaa madaxweynaha Xasan Sheekh waa naga dhaxeeya waxba kama qabno haddii laakiin uu dowladdii iyo baarlamaankeeda ay leeyihiin Jubbaland dabargoynayna dhibaataynayna Jubbaland Allah wata weel uma baahna horay u socdaa aad uma santa wasiir qadka sidaas ugu jiro shukran leeyahay waxa waaye jeesow baarlamaanka uu ku jiro 275 runta markaan kuu sheego maalintii ay yidhaahdeen Jubbaland ayaan u codaynay maalintaasaa horta ay u dhamaatay ayaga yaasiin waa laga kaca janaasa lagama kaco yidhaahdaa dad baa ku maamaaha janaasaa lagu dukaday international community iyo UN-ki Arab League OAU African Unionka igaad waxay ku hadleen waad maqlaysay wariyaa inaan ku dhalay waad ogtahay hay garbanina garabka ay ugu dhufan buu yidhi wixii jira ha ogaadaan sumcaddana iyo isaga dheeli dhibaatana iyo isgelin dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland higsiga 16 wixii na barnaamij soo baxa ayaan wax ku wada samaysan doonaa haddii alla ka dhigo way aad u maasanta wasiir waxa jeclaan lahaa anshaxa barnaamijkan inay ilaaliso Jubbaland ay tahay sidaa way kale markuu yiri jeesow uu leeyahay meesha la yiraahdo salaqle waa degmi anigoo gees cadda ayaa dikreetadii Maxamed Siyaad Barre ku magacaabay oo aanan faafintii gelin ayaan intaan qaadaan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf u geey aniga iyo xidig iyo ninka la yiraahdo waxaan ahayn mataqaanay mashruucan ahayn si dikreeta leh oo official ah ayaa loo magacaabo degmo looga dhigay waxa waaye wax qudbisiraad ma aha waxa qudbisiraad la yiraahdo way wasiir aad u maasan tahay qadka sidaas ugu jiro waxa yeelaysaa si official ayaa loo magacaabay dowladda Jubbaland waa aqoonsan tahay oo waxa hadda dhibaato oo ka jira ma jirayso waa maasan tahay aad u maasan tahay waxaan jeclaan lahaa barnaamijka anshaxiisana ilaaliso wasiir dad badan aan dhageysanayo waxaan siinayaa oo qadka qardha ku jira sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac waad maqlaysaa maxaa dastuurku uu ka qabaa ama sharciga mooshinkan xildhibaanada baarlamaanku ay ka keeneen xildhibaanada maamulka Jubbaland بسم الله الرحمن الرحيم ninka garyaqaanka inaa ku dhiman hal qodob qoraaya oo leh
dastuuri waaye in waxyaraal Jubbaland dawladda dhexe baarlamaankeeda uu rido wax kama jiraan uu yiraahdo wax ka jira ma jiraan dastuurka adigana waa haysataa ama waa haysataa international community-ga haysta dawladda waa haysta baarlamaanka waa haysta baarlamaanka 75 ee Jubbaland waa haysta way waxyaraal anaa haysta wax ka jira ma jira kaasa nul goynina hore u soco way hadoodan ku jirnaa sharci yaqaankan aan dhageysano raalina ahaada barnaamijka ansixiisa aan ilaalino haye bismillahir rahmanir rahim horta hore labada oday waa salaamaya iyo aaminaladan iyo radio daljirba doodayda waxaan ku bilaabi lahaa marka hore waxaan rabaa inaan odayaasha kusoo dabaalo dalka inagu hadda aynu ku noolnahay oo la dhaho Soomaaliya ma aha dal madax banaan oo dawlad ah waxa weeye dhankaas Kenya ku jira AMISOM loogu magacaaba gobolada dhexe waxaa jooga Ethiopian AMISOM lagu magacaaba Muqdisho waxaa jooga Uganda iyo Burundi waxaa lagu magacaabaa AMISOM waxa weeye dalku ilaa xad waxa u malaysaa dal ikhtilaal inuu yahay hoggaankiisa iyo wax ka dhihidiisa iyo wax sharciyeyntiisana dadka Soomaalida gacanta ugu jira wuxuu gacanta ugu jiraa Nicholas Kay iyo qoladan la yiraahdo international community marka walaalkay Jeso waxaan dhihi lahaa hal arrin waa muhiim in shuruucda iyo qawaaniinta dalka la dhowro maxaa jira sharciga wadanka sharcigiisu u dhowran yahay waxaa hubaal ah inuu tallaabooyin horumar samayn karo meesha sharciga lagu xadgudbo oo mataqaana lagu sameeyo gabood falna dib u dhac iyo fawdo iyo jahawareer baa ka dhaca sida inaga hadda maanta marxaladda aynu ku simanahay markaan usoo noqdo sharciga iyo qawaaniinta dalka had maamuuska sharcigu wuxuu qabaa in koox ama shakhsiyaad inaanay awood u lahayn inay ku takrifalaan awoodda dawladda oo ay u adeegsadaan dana gaar ah aniga waxaan qabaa mooshinkaas waxaa loo adeegsaday dana gaar ah sharcina kuma fadhiyo qawaaniinna ma aha xataa maalinkii la codeynayay waxaa loogu codeeyay si fawdo ah shirku ma u ballansaneen arrintaas mawduuc kalea loo ballansanaa marka waxaan qabaa de kollay afrikaanka xikmad weyn oo bela ah oo adduunka lagu badbaadiyay ma laga sugaayo laakiin ninka afrikaanka waxaa laga rabaa inuu gurigiisa aqoonsado caruurtiisa caruurta kale ka aqoonsado ibni aadanka uu ammaan siiyo aniga waxaan qabaa inaga ehel baynu nahay isma fuul garayn karre mid aan samayno waxa weeye Jubbaland waa dawlad goboleed waxaa endorsement ku sameeyey international community waxaa endorsement ku sameeyey madaxweynaha maxaa la yidhahdaa dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaan umaleynaya cid kale ee hadda ay wax uga baahan tahay male dadkaasa wadanka xukuma iyagiina waxay siiyeen aqoonsi anigu waxaan dhihi lahaa mowqifkaas maxaa la dhaha qodobkaasi wuu qaldan yahay raggii keenayna waxaa laga rabaa inay apologize ka sameeyaan maxaa dhacay baydhabo waxaa laga sameeyey 2 dawladood mid oo 6 gobol ah iyo mid 3 gobol ah dawladda iyo international community-gaas waxay isku raaceen inay taageeraan tii 3 gobol tii 6 waa la khaarijiyey maalinkii la aadayay Copenhagen maalinkii ka horreeyay ayaa waxaa loo codeeyay Shariif Xasan shirkii buu ka qayb galay yacni shakhsiyaad la wato waaye marka wadankii oo dhan baa saa ku shaqeeya marka haddii Jeso uu leeyahay yacni Jubbaland kaliya sharcan u doonaynaa inta kale iyo raali ah goboladan dhexe hadda shira ka socda shirkan waxaa la dhahaa shirka maxaa la dhahaa galguduud iyo mudug shirkaas waxaa kaga jira hoobyo iyo xaro dheere laakiin mudug xooggiisa shirkaa kuma jiro masalan kuma jiro gaalkacyo xoogeeda marka tuulada baraxley laga reebo kuma jiro jahiiban kuma jiro muxuu ahaaye garacad kuma jiro galdogob kuma jiro muxuu ahaaye xaafadan la yiraahdo maxaa la dhahaa xarfo marka waxaan rabaa inaan ama shuruucda si fiican ha loogu wada dagaalo oo xildhibaanada yaani qolana u hiilin qolana ka hiilin oo hawa standard oo international ka istaagaan ama weli waxa waaye qaadifadii qabiilka jidee waxaa fiican inaan la jiifsano banaan la joojano banaan aan loo isticmaalin jeeso waa taadiil aada u mahadsan tahay sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac qadka sidaas igu jir xildhibaan jeeso waan siiyo xildhibaan waad maqlaysaa sharci ma aha la leeyahay ayuu leeyahay sharci yaqaanka mooshinkan ka dhanka maamulka Jubbaland marka waxaan sharci ahayn see u ansixiseen xildhibaan walaal dhawaad maasta odayaashana waa islaamayaa labaadii marka saddexaad weliba walaalkay geed cadde waxaan leeyahay walaalow min miisaan badan baan kugu ogaa weliba siyaasadda u bisan
waxaan rabnaa in waxaa waa dood cidna waxba ka dhibi mayso inaan lagu dhex fududaanin oo taariikhdu way furmaysaa waxa weye waa dood shacabkeena aan dhegeysanayo waxa aan haynaa waxa weye markii aan usoo laabto walaalkay walaalow garyaqaanka waxaan leeyahay culummada marka ay kitaabka jeedinayaan oo ay dhameeyaan waxay yidhaahdaan ilaahow eex iguma ogida aqoon la-aan ha igu cadaabin tabaryaro dawladeena ha jirto laakiin inaan ummadeena ugu tagno wax ay madaxa iskula gasho ilaahayna iguma ogo dantaydana kuma jirto danta ummadeydana kuma jirto in maanta Soomaaliya oo aan xildhibaanadoodi aan nahay wax berrito ay ku burburayso oo dhibaato ah inaan ku fogaado oo aan dhinac kale ka eego anigana dan iguma jirto ummadda Soomaaliyeed dan iguma jirto wixii ummadda Soomaaliyeed dan waa ayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ay matalaan dan waa dastuurkan waa kuu sheegay aniga sooma qorin asoo qoran baa lii keenay waa liigu kordhaariyey kitaabka gacanta kitaabka midigta kitaabka qur-aanka midigtayda la saaray aniga qaluubtayda la jirto soomaalinimo iyo muslimnimo iyo rabbi ka cabsi anoo ay jirkayga ku dheehan tahay oo lii qiimeysiyey ayaan ku dhaar inay sida uu yahay aan u fuliyaan waajib iga saaran waa walaalkay wadcad wuxuu yiri madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf aan wareegtada ka soo qaaday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweyne Sheekh Shariif wixii ay magacaabeen oo wareegtadooda ahaa iyo wixii ofishaal bulletin ay soo saareen intaba waa la mamnuucay shacabka Soomaaliyeed aad ha ii dhageystaan waa la mamnuucay 80 degmo ayaa kamid ah yaa reey waan jeclaan lahay aamino in baarlamaanka Soomaaliyeed uu fadhiisto qodobka 49aad wax laga bedelo 184 cod wax looga bedelo degmooyinkii iyo goboladii la laalay laakiin xildhibaan jeeso aan ka dhexgalay dad badan waxay isweydiinayaan hadda maxaa arrintan ku soo beegay xildhibaanada mar hore dooda way taagan aan dhamaysto walaal macaan aamino walaalkay wuxuu yiri qabiilkaas oo ka dhashay qabiilka waa laga dhashaa laakiin xilka markaa hayo ma u shaqeynayo qabiil ma u shaqeynayo muxuu ahay cunfi iyo iska dabalaab iyo jacayl waxaan u shaqeynayaa mas-uuliyadii liigu aamino in sidii ay ahayd aan u guto waxa weeye haddii qabiil la fiirinayo 80 degmo ee laalan 10 degmo oo ani aan isagaba walaalkay as og yahay oo aan soo saaray ani decretorada iyo bulletin official aan gacantayda ku soo saaray ayaa dadka deegaanada liiga soo doortay ku jirta erxana kamid ah hal soo diri waay muxuu ahay degmooyin badan ayaa buur dhuubadaas maxaa loogu soo diri waaye herzungi maxaa loogu soo diri waaye iyo meelaha oo hadda ay dagaalada ka dhacaya marka walaal maxaa loo xaramka looga soo diri waaye meelo badan bay degmooyin badan ba sidaas ahaa la laalay waxaa xaaraantimeeyey marka maxaa uga hadli weyseen xildhibaan jeeso markii hore laga soo xulayay dadka xulitaanka xildhibaanada waan ku wadaa waxaan rabaa markii laga soo laabtay Addis Ababa shir in la qabto dib u heshiisiina ummadda Soomaaliyeed iyo dawladooda iyo shacabka deegaanka ku nool oo gacanta isqabsado oo wax sameystaan la rabay waa la diiday arrintaas waad ogtihiin wasiiraad tagay oo laga soo xeeriyey waad ogtihiin in muxuu ahay awood iyo kala qaybsanaan iyo fawdo uu gobolkaas ka jiray waad ogtihiin uu dagaal badan ka dhacay waad ogtihiin barihiilaada iyo gruubkiisii sidoo hadda ninkaan odayga u sheegay waxaan bumalaynaa dadkii wuxuu ahay madaxweyneyaalkii siraxay waagaas oo kamid ahay aan bumalaynaa ayaana qaldanaan haygan raalli ahda hadii aan qaldanay waxaasoo dhan markii lasoo laqay oo meel lasoo dhigay baarlamaanka Soomaaliyeed intay u yeerteen aniga guddiga arrimaha gudaha iyo amniga aan gudoomiye ku-xigeenka fitina kuleeyahay maamul kasta oo la samaynayo inaan goobjoog ka ahaado ayuu sharciga dhigayaa sababtoo sharcigii baarlamaanka u ansixiyey maamul samaynta gobolada dalka wuxuu leeyahay gogosha maamul qodobka 6 waa gogosha maamul samaynta waxaa iskale odayaasha dhaqanka oo kaashanaya xildhibaanada deegaanka soo jeeda wasaaradda arrimaha gudaha waxay leedahay
ilaalinta amniga iyo bixinta qarashaadka guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka wuxuu leeyahay korjoogteynta iyo habsami u socodka muxuu ahay shirarka maamulada loogu sameeyo waayo marka xildhibaan jeesow arrintan mudday soo socotay irdiyaa la xirtay degmooyinaa lasoo aruursaday maxaa uga hadli weyseen marka hore idinka marka waa ka hadlay aamino sheekh maalinta madaxweyne xasan sheekh maalinta tagay madaxweyne xasan sheekh uu yiri madaxweyne adiga ah walaal ninka koowaad oo ilaa hadda ka hadlay aniga waayo mar walbana raadiyo daljir waan ka sheegay xataa madaxweyne ma magacaabi karo degmooyinkii la bandaday ilaa baarlamaanka soomaaliyeed oo qodobkaas wax ka bedelo xaquuq ma laha la yiri waa tuulooyin intaa halagu qanc sharcigana intaasuu saameyn ku yeeshay waayahay xildhibaan jeesow saaqadkii igu jiro wasiirka ansiyo ganacsiga ee maamulka jubbaland yaqaanka uu sheegay ma aha cunfi ma aha wax dad loogu danaynayo ma aha wax oo kale oo siyaasadaysan xaqiiqatan iga rumaysta waayo xildhibaan jeesow qadki sida ugu jiro labadaas qodob fiiriya wasiirka ansiyo arrinta hadda uu yaqaanka uu sheegayo muxuu ahay gobolada koonfur galbeed uu ka hadlay koonfur galbeed hadda barnaamijka nooma saara laakiin markii barnaamijkaas ugu marti qaada daljir siday tahay aan uga hadlayo waayo xildhibaan jeesow aada umahadsanta qadka si ay igu jir wasiirka ansiyo wasiir xasan isxaaq yacquub geesi cadde waad dhegaysanaysay markii go-aankan uu soo baxay oo mooshinka idinka dhanka ah baarlamaanka uu meel mariyey waxaad sheegteen inaad dawladda federaalka xiriirka u jarteen calankii soomaaliya waad gubteen jawaabta saas ma aheyd ee kula tahay inaad saas samaysaan horta aad iyo aad aad umahadsan tahay mar haddii waxa mooshinka qoraaya ama waxa hadlaaya jeesow camal ay yihiin oo wax kasta oo imaan kara waa naga imaanayaan dawladdana xiriirkaan u jarnay haddaanba kuleeyahay waa u jarnay dawladdu haddii dawlad goboleedkii jubbaland ay leedahay baarlamaanna ma dhisan karto gole wasiirana ma dhisan karto jubbaa la yidhaahdaa iyo wax aanan jirin ay ka sheekaynayso waxaan ku qasbannahay in aan horay u soconno ayada aanan sugin oo aan dawladnimadeena hiigsano dalkeena iyo dadkeena wixii u dan aan ku shaqayno waa ku qasbanahay qodob waaye jeesow wuxuu yiri dib u heshiisiinaa la galay jeesow waxaan weligiis asigaa gadaal ka riixay asiga unbaa dawladda dhexe iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo speakerka iyo waxaan asaa gelin jiro asaa horay u socday annaguna waxaan 200% inaanan eed iyo problem iyo dhibaato aanan imaan qunyar socod qodaxma muddaa la yidhi qunyar socodaan ku socnay axmed maxamed islaan madaxweyneheena waxauna lahaa qunyar socod qodaxma mudde dawladda dhexe annaga isla jaan qaadno marka waa buuxsamay weelka haddii wax lagu shubo waa buuxsamay waa buux dhaafnay dawladii annagu hadda dawladda dhexe waxaba yaraatay aan isu nahay ma jirto mar hadduu jeesow waxaas uu ku hadlayo nabad allaha yeelo annagana 5 salaadood meel aan ku dukano hal weyse aan ku dukano adiguna salaadeeda 5 salaadood meel ha ku dukato waqtigaan isu imaan karna allahna tuulooyinka uu sheegayo degmooyinka laga dhigay anigu waqtigii degme laga dhigay ma aqaan laakiin runtaan kuu sheegayahay salagle degmo maxamed siyaad barraa u magacaabay jeesow aniga muslimaan ahay asigana wuxuu yiri muslimaan ahay muslimnimo aan lagugu dhowraynin iyo muuminnimo khaas ah gaal maxasta kuu dhowrood magirsataa dhaab kow qodob waay qodobka labaad jeesow wuxuu leeyahay muslimaan nahay annagu muslimaan nahay kuna noqday annagu gaala miyaan lahay man yuridullahu man qofkii yuridullahu ilaahay la doono bii khayran khayr la doono yuwafiquhu u waafajiya fi diin kuwa ilaahay diinta waafajiya annagu dad ma dhibno dawlad kale ma dhibno dad muslim ma dhibno degmooyin ma dhibno tuulooyinka hadda uu sheegay haddii degmo laga dhigay dadkii ka dhigan lahaa waa joogaan xildhibaanay leeyihiin degaan waaye cidi uma diidana wixii jubbaland ka dhexeeya
tuulooyinka uu sheegaayo oo dhan barabosalkooda xildhibaanada iyo wasiiradii soo gudbin lahaa waa joogaan ayagoo kala ah kheero kala ah ayagoo degaan isku ah waa joogaan cid u diidanna male cid wax diidayna ma jirto xildhibaanka loo dhaariyey ilaa afsano anugu kuma jiro kuwii madaxweyneyaashu isu sharaxay kuma jira raggii madaxweyneyaashu isu sharaxay waa madaxweyne waaye madaxweyne ku-xigeen waaye waxa waaye waa xildhibaano waaye wasiiro waaye degaanaan ku heshiinay tolnimaan ku heshiinay wax dhibaato oo dhexdeena yaalla ma jiro cumar buraalaa kamid ah cabdi baaleyaa kamid ah iftiin xasan baaskaa kamid ah corneel xasanaa kamid ah all waxa waaye waa heshiinay wax dhiba dalka ayagaa daadaheeya hadda waaba ayagaa loogu dambeeya ee joogtay jaamacadan kamid ahaa jese waa uu og yahay buu isyeelyeelaya qoladii jaamacadda joogtay oo lahaa war istagu salaada hala galo yaan la furanin tareelka waa socdaa yaan laga degin raggii lahaabaan kamid ahaa aniga iyo iftiin xasan baasto iyo cabdi baaleyna talada isku meelaan ka nahay weliba talada sareeyana anaa rabo marka jesow wax dastuur oo uu meesha ku hayo male dastuurka uu sheegayo sheekh shariif iyo cabdiweliyaa sameeyey waxayna u sameeyeen qaab dhismeedka ayaga ay u rabaan oo inay madaxweyneyaal noqdaan wasiir waxaad sheegteen inaad dawladda Soomaaliya ku jirteen Jubbaland dawlad waaye Axmed Madow waa madaxweyne barlamaan 70 sano ay leedahay waxa waaye marka go'aankaas aad xiriirka ugu jirteen walaalkay ah si yar socda barlamaankiisa ugu dhex jiro haddii ku dhex jiri waa in dawladda waxaan leeyahay war xilka ka qaada ninkaan nin barlamaanka ku dhex jiri kara male waa mahadsanta waa ka bax wasiir su'aal kale haddii aan ku weydiiyo waxaa jeclaan lahaa hadalkan inaad soo koobto dad baa kugula jira qadka waqtigaagana aad qaadato waxaad sheegteen in dawladda federaalka aad xiriirka u jirteen marka go'aankaas aad xiriirka ugu jirteen dawladda saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa ayaa isleedahay hawlihii dhinaca horumarka haddii ay ahaan lahayd dhinaca horumarka mashaariicda aqoonsigii maamulka Jubbaland ee adduunka iyo diblomaasiyiinta idin soo booqan jirtay diblomaasiyiinta soo booqanaysay maalin kasta waaye ilaa dawladda waxaa sheegtay inaad xiriirka u jirteen idageyso international community UN donoriska Arab League oo iyo Arabta Amerikaanka Ingiriis si daradoor bay noo taageereen waa noo hambalyeeyeen waxayna yiraahdeen shaqadiina iyo waajibkiina guta annagana garabkaan idinka taagana dawladda federaalka barlamaankeeda haddii uu yiri jeesow siduu Allah waad maqlaysaa dawladda Jubbaland barlamaan ma dhisan karto gabadha islaamtu iyo gabadha aabaheeda iyo ninka nikaxsanay haday dhameystaan ma nikaxsan kartid xaran kuwaas muu ilay wax aqli geli kara ma xildhibaanjeesow aan siiyo marka fursadda hadda nikaaxi waa qabnaa qabiltu nikaax wa tasmiid waa bi hada almehri waa mehersanahay international community iyo UN-ka iyo Arab League iyo OUN waxaan ka rabno aqoonteena nidaamkeena annaga qoranayno dawladda dhexe hadayna diiday annagana waa diidnay intaasaa hadalku yahay aada umaadsantaha wasiir qadka sidaa ugu jiro xildhibaan jeesow aan siiyo marka xildhibaan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa loogu baaqay guddigii dhowaan xukuumadda u magacawday xalinta tabashooyinka ee ka dhashay dhismaha baarlamaanka maamulka Jubbaland inay dardargeliyaan howshooda madaxweynuhu wuxuu sheegay in isaga iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ay horay maamulka Jubbaland uga wada hadleen xalinta tabashooyinka jira la iskuna afgartay dhismaha guddi heer wasiir si ay u guda galaan qaabka ugu wanaagsan ee beelaha wada jubbooyinka loo qancin lahaa marka soo ma moodid madaxda dawladdu arrinta ku jirta inaad degdegteen oo dad wax dhistay oo horumar sameynaya waxooda inaad carqaladeynaysan exactly waa mahadsantahay amina aad mahadsantiin runtii wasiir wax raalli ahoo su-aasha maxaa weydiiyey xildhibaan jeesow waxa waaye dawladdii prime ministerkii baa noo yimid madaxweynihii baan wada hadalnay meel doxa intay kasoo dhaceen bay waxay yidhaahdeen wasiir raalli ahow cafwan wasiir xildhibaan jeesow aan su-aashan weydiiyey doorkaaga waa qaadatay ilme waay wasiir xildhibaan jeesow aan su-aashan weydiiyey raalli ahow waqtigaaga waa qaadatay aamin horta marka ugu horeysa aamin marka ugu horeysa waa mahadsan tahay waad nagu xaragto waa ujeedaa waa nagu daashay waxaan rabaa
وحير أنا سؤال هذه كجوابي إنه وحير أنكر مرسل qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya qodobka 42 xarafkiisa F wuxuu leeyahay muwaadin kasta oo Soomaali raalli oo wasiir gees cad raalli oo war dalkii waxaan jeclaan lahaa aqyaarnimo waxaan karaan male wasiir gees cad waxaan jeclaan lahaa inaan shacabkeeni ama qaatiya madaxweyne ku-xigeenka baarlamaankeena dhisane waxaa tiri ma dhisan karaa xukuumaad tiri warkooda shacabkeeni ama waxaan rabaa raalli ahaada wasiir gees cadooda iyo naga xumaan dad badan aan dhegaysanayo halo waayo horaan u soconaa adigana waxaad rabtaa inaad sagafeero lugaha nooga jarto aadna qabsato wasiir gees cadde nin dastuur ku naqmana may walaal macana waad mahadsantahay maaha inaad na kharibto oo aad tiraahdo haddii warkaaad kusoo noqon haysa tuuluwa cafwan wasiir gees cadde raalli ahaada raalli aho waqtigaaga markay kusoo gaarto dooda mahadsanid سعيد mahadsanid waad mahadsantahay walaalka macana waad mahadsantahay سعيد cid lagu fiir ugu dabri kartaa male حتى شخصي bulshada Soomaaliyeed kamid muwaadin tahay danta talaa hadii adu aragtay inay dib ku tahay arinta dood siday tahay noogu socoto waxaan ka sugo dawladda waxaan ka sugo waayo wasiir raalli oo dooda hanaga xumeenin doorkaaga qaado fadlan waa ku celcelinaa raalli oo wasiir barlamaan 270 maalintii odaynay u lamaatay nabadgelyo waay dalka dadkii baabi dad oo mooshin ku nool waay dad oo prime minister kan soo qabo waxaas ku jiro waay wax hore yaraatee Jubaland kuwan ay ka sugayso ma jirto nin diaspora oo duurka ka yimid daydaye waay wuxuu rabo oo mooshin inuu ku qaato rabo waay anigu dalkayga iyo dadkayga anaa dhisanaa Jubaland anahay waayahay baardheer iyo salag liisaakow iyo kismaayo rabaa inuu igu xukumo war qoladii uu ka dhashay gaaljecel waxa waa 10% waay waxooda waa qabaan wasiiray leeyihiin maaray ku-xigeenka dekeday leeyihiin dad oo sofashanti waay dalkooda iyo dadkooda ka naxay ciidankooda u dhisan yahay waayahay raalli ahaada xildhibaan jeesow iyo wasiirka ganacsiga ee Jubaland استغفرullah salaada dukada nabadna Allah ku yeelade gees cadaan kula kaftama walaalo horta markii ugu horeysay waxa weeye حرام واي جبو واي حرام واي ما كفتك مرة بلو سياسي نواتها سياسي نواتها أنقلو كفتم أذيك وريا بركوت بانهنا أذيك هيك فقوق maaray ku-xigeenka dekedaad leeda waxa kaa maqan maxay waxaad la qaybin waayahay dooda aminay dooda maskaxna assalaamu calaykum waxaan rabaa amina marka waa mahadsanyahay walaalkay waa dhegaystay wixii canaan as isaari karna uu isaaray laakiin canaan anigu xaq aan waxaan xaq u leeyahay ugu degi maayo waana nasiib darre haddii shaksi walba dantiisa wixii uu ka arko oo qarannimadii Soomaaliya uu ku baabiinayo aad iyo aad wax looga xumaado waa biseylkeena ayaa intaas gaartay waxaana muhiim ah in 13 nin oo SYL kamid ah qarannimada Soomaaliya soo hooyeen xilli ka xun ay tahay maanta in muxuu ahay 1960 شخص نوعا وهلا ولا أنا دوني هذا إن أنا
aan wax ka sheego aan doonayn inuu intaas u maro dantaydaan waaye inuu u maro waxa weeye aniga jeeso way iga leexnahaysa dhabahayga aniga iyo asagana waa si fiican aan usu naqaan saaxiibaan nahay walaalaan nahay waana ahaan doonaa waana nahay diin iyo dad iyo dalba way naga dhexeeyaan laakiin hal shay dadkii ii soo dooday uu la kamid yahay geed haddaan dad xasuusinaya haddii kalaba anoo xildhibaana ii keensada doodiisaas kamid ahay laakiin hadda ma saara doontaa waa ujeedaa hal shay muhiim ah qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed waa inuu dastuurka dalka u yaala inuu bartaa akhriyaa qodobka 42 ayaa dhigay waa iska saaran waay calankii Soomaaliya gubi dawlad soo taagay maanta calankii Soomaaliya gubi dawlad soo taagay maanta wuxuu limid in yiri dintaan ay dadaan in yiri dalkan iyo dadkan qodobka 42 aan lagu lugoynin dalkan iyo dadkan waxbay dhisteen horay u socdaan horumar bay rabaan inay gaaraan caruurtooda waxbarasho rabaan inay u helaan saraakiil sarsare oo dalkan difaacdo inay sameystaan bay rabeen waa sameysteen qodobkan intaas uu marayo walaalkaas intaas wuxuu marayo waa kursigaas yar ee uu haysto war aniga xilbka dawladda federaalka aan ka hayo maanta waana isiga dagayaa waana liiga waxaana huba siyaasadda waa qarinkiisa oo kale waxaad ogaataa ummadda Soomaaliyeed ha qaribin walaalow gacaliye calankii kale aad wasiir ku noqoto ee aad ummadda Soomaaliyeed inaad u matasho hadii maanta meel fagaaraha ku guri mid dambiilaha aniga la doodi maayo ilaahaygaga subxaanahu watacaala ay ka baq ummadda Soomaaliyeed ee aad matasho hadda waxa weeyaan waa goosi meelaha dhulka Soomaaliya karin yar maaha saliga oo saada lagu tukado maaha garabka lama saaranayo birri baan kaa soo qabanayaa oo maxaafiid oo wiil ku qoraya xalkii Soomaaliyeed raacin waddan baaqay ugu madaxay الطفورة مضاعنا طوليا مراعنا قبل ما يسبطورا قرني مومتانا صوماليا تروا واتي إلهي تعبنا الطفورة مضاعنا طوليا مراعنا قبل ما يسبطورا قرني مومتانا ترقيو بيل ترقيو قبيل ما كتاب احنا ترقيو بيل ترقيو قبيل ما كتاب احنا waa tahay mar kale kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijku waa maanhadal waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha daljir ee gobolada dalka waxaa marti igu ah wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubbaland Xasan Isxaaq Yacquub Gees Cadde
iyo xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jubbaland baa tiri asaasaan kaa rabaa soo waa tahay xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo sharci yaqaan muuse cali jaamac oo isna qadka taleefanka qardho ku jira barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay mooshinkii dhawaan laga keenay maamulka Jubbaland waxaan jeclaan lahaa anshaxa inaan ilaalino waqti yar aan noo haray wasiir adigana doorkaaga markuu ku soo gaaro dooda inaad hadasho laakiin aadan ka dhaxgelin jeesona saasaan ka codsan lahaa waxaan jeclaan lahaa in anshaxa barnaamijka ilaalino oo qof walba markii dooda soo gaarto uu hadlo laakiin aan la iska dhaxgelin si waxaad sheegaysaan dhageystayaasha ay u fahmaan idinkana isku maqashaan xildhibaan daahir amiin jesow ayaan siinayaa xildhibaan jesow su-aasha haddaay aan ku weydiinaya rabaa inaan dib kugu celiyo haddiiba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay wadeen gogol nabadeed oo lagu xalinayo tabashooyinka jira maxaad ku degdegteen idinka waxaan rabaa walaale waad mahadsan tahay odayaasheena mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin intay dhegeysanaysan sidoo kale waad mahadsan yihiin marka waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto horta marka ugu horeysa calanka la gubaa waa dembi ka weyn ma laha calankan dalkeena oo la gubaa dad baa u dhintay dad baa god u galay ma aha dadka godka u galay qabiil ma aheen walaalo ay dhiigooda isku dhaarsaday bay ahaayeen muwaadin kasta oo Soomaaliya calankeena sharaftiisa iyo qiimihiisa ayuu sharaf ku leeyahay walaal kasta ee Soomaaliya diinteena iyo dalkeena ayaan sharaf ku leenahay calanka waa astaanta qaranka in la gubaa waa madno si gubaan 10 sano ka soo wareegto 100 sano maba la noolaanayo 10 sano ka soo wareegto mar labaad waa dambiil waa la noo eedeyn doona taas horta meeshaas aan rabaa dhigo tan kale ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii ay wax qabanayaan waa fulintii annaga ma nihin fulintii haddii ay wax qabanayaan oo ay wax dhisayaan oo aan laga soo xeyrin doonin meeshii oo meel group oo aanan hadda anigu waxa aan ku tilmaamo meel calankii Soomaaliya lagu gubay hadda shabaabna kuma tilmaami kari xataa weli calamada way qaateen nimanka duurkooda ay galeen laakiin nin Soomaali ku sheegan oo calankii Soomaaliya gubay haddii ay wax ka qaban karaan way xaq bay u leeyihiin ay ka qabtaan wadanka ilaa raas casayr ilaa bari ilaa raas kamboni iyaga madaxweyne waa marka iyaga ra'iisul wasaarayaal waa hadday wax qabanayaan anaga guliyii waxaanahay ilaah baa sharci dejiyay dejiyaalkii iyo ilaaliyaalkii sharciga qowsaarka looga dhigtiyaan nahay waajibka inaga saaran oo ah waxaas lagu xadgudbay inay waa gudan marka intaas waa aniga inta ruulgayna waxa kalena waxaan ku xisaabtamaynaa siday u fulaan nimankii xukuumadda ee golada fulinta ku xisaabtamaynaa waa dhamaatay laakiin hawshaba haddii wadeen madaxda dalka soo ma aha inaad u daysaan inta laga soo xalinayo tabashooyinka jira xildhibaan jesow annaga khilaaf jira hala soo xaliya annaga khilaaf ya akhi waa qulusiina markaa la siiyo khilaaf jira hala soo xaliyo ma diidin waxa aan diidnay waxa waaye qodobo aan dhahna qodobkaas sax ma aha sharcigu waxa gudbiya iiga jirta marka say weligii u marayaan iiga jirta anaga waxaan sheegnay salabna inaan degmeen baarmaan lagu soo xulina ay xalaal lahayn waxaan sheegnay in axmedmadooda heshiiskii adisoo meel aan ahayn oo hogaamiye loogu magacaabay ayna jirin inuu hogaamiyihiisii ahaado dawladdana ay xaq u leedahay inay wax ka si degdeg ah wax ugu dhisto bisha agoosto ka hor hadday bisha agoosto wax dhis waayo baarlamaanka wuxuu qaadanayaa moqof kan ka fog midka hadda u qaatay mid ka fog waayahay dib aan kugu soo laabanayaa haye wasiir su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo umahadsan tahay horta jesow hal qodobaa ka khaldane heshiiskii ardisababa ahmed madoobe heshiiskaasi madaxweyne lagama dhibin madaxweyne ahmed madoobe waxaa ka dhigay Jubbaland ka dhigtay 875 qofood oo erga ahayd ayaa doortay si dastuuri ahaa loo doortay si sharci loo doortay kadib adigu waxay jesow gadaal ka riixaayeen iyo dawladda dhexe gadaal ka riixaayeen oo ay laayeen
jubbaland ma dhaqaaqi karto lalahaa unbaa adugu international communitygii baana dhexgalay waa heshiinay haddaan heshiinay waxaan ku heshiinay in dalka wax loo dhiso golo wasiire la dhiso barlamaankii la dhiso taladeena okay laga dhigo ciidamadii meelaha joogay oo ayaga ay meelaha ku biilaayeen in lasoo xeeyo ayadoo 5 geeso lagu soo xareynayo international community iyo UN-ka iyo IGAD iyo qoladan AMISOM dawladda dhexe iyo dawladeena Jubbaland intaas ay iska kaashadaan lagu heshiiyay shirna ka dhaco magaalada Muqdisho la isku soo yaqleelo kadib laga soo baxo la yimaado Kismaayo la yimaado dawlad goboleedka Jubbaland la yimaado doorasho ma dhacday boroseeskaas oo dhan waa marnay okay yaa laga dhigay geesow maalintaas ilaa up to now waa uu lahaa Jubbaland al-Qaacida joog gees hadda waa al-Qaacido ammadoobe oo madaxweynaha al-Qaacido sidaan uu ku haayay wixii waxay iska ahaayeen wax oo masaajidka dhexdiisa saaray ulan ku dhufana unbay iska ahayd dawladda tan Jubbaland iyo Axmed Madoobe iyo dalkan wixii dad oo joogo in dawladnimo la gaaro dawladda dhexe annaga inaan isla jaan qaadnaan rabnay laakiin jeesow iyo qoonkiisa uun ku raftay oo wasiir su'aalaha rabaa inaan ku weydiiyo adoo raalli ah dawladda hadday ayn noo baahneen iyo jeesow annagu ma rabne dawladnimadeena waa dhisan tahay international community-ga iyo UN-ka Arab League iyo OU iyo donoriskana iyo qolada la yiraahdo wax kasta oo dawladaha waana taageersan yihiin hadda beesha caalamka sidee idin kugu imaanada dawladda xiriir ku jirteen wixii talaa wixii qaabeen annaga iyo dawladeena inoo taalaa dawladda dhexena xiriirkii waa u jarnay nabad Allah yeela ayadana meeshii jeeso uu goynaaye annagu warka waxaba yaraatee aan ku darsanayna malay nabad waayahay wasiir su'aal haddii aan ku weydiiyo qaar ka mid ah shacabka gobolka Gado oo maamulkaasi ku abtirsada Jubbaland waxay ayideen go'aanka ka soo baxay baarlamaanka mooshinka ka dhanka ah maamulka Jubbaland arrintaas sidee u aragtaan idinka gobolka Gado gudoomiyihii gobolka aan u magacaabnay Gado jooga wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga joogo madaxweynaha saacada ugu wada hadlaan madaxweyne ku-xigeenka saacada ugu wada hadlaan golaha wasiirada Xasan Dheere oo wasiirka caafimaadka ayaa joogo ugaasyadii baa joogo waxaad sheegaysaa haba yaraatee wax ka jira male wax qudbisreed waay wax qudbisreed idima gasho arrintaasi gobolka Gado gacanteenu ku jira ciidankeena ka talaya waxaa ka talaya wasiiradeena wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha laakiin wax jira waa in gobolka Gado mudaharaadyo ay ka dhaceen oo looga soo horjeedo maamulka meeshay joogaan dadka dimuqraadi waay lama caburinayo wixii yaro oo uu iska qaqaylina wax problem oo meesha ka jira ma jira waaya qadka sidaas igu jir arrintaas waxaa ka soo horjeesada dhankooda maamulka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay mooshinka ka dhanka ah maamulka Jubbaland waxayna sheegeen in arrintaasi lagu degdegay afayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Quraan Jecel ayaa ka hadlay mabaadi'da federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaa darteed dawladda Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu si bareera u gees maray dastuurka federaalka Soomaaliya mooshinkaasna waa mooshin xaaraan ugu dambeyntii dawladda Puntland waxay ilaalinaysaa mabaadi'da federaalka iyo wada shaqaynta maamulada federaalka ee Soomaaliya sida ku cad sida uu qabo dastuurka federaalka Soomaaliya qodobkiisa 50aad farqadiisa A dawladda Puntland waxay si dhameystiran u taageeraysaa go'aankii dawlad goboleedka Jubbaland uu ka qaatay go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku sheegay in baarlamaanka Jubbaland uu sharci darro yahay dawladda Puntland ee Soomaaliya iyadoo ilaalinaysa mabaadi'da federaalka Soomaaliya waxay garab istaagaysaa dhammaan maamulada dhisan iyo kuwa dhismi doona si waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya kaasi waxa uu ahaa afayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Quraan Jecel oo ku dhawaaqayay go'aan ka soo baxay maamulka Puntland xildhibaan Jeesow haye go'aankaas saameyn intee lagu keeni karaa isleedahay
doorkaaga qaado markay dooda kusoo gaarto. arrintan waa afjaran tahay maxaan jecel yahay ninkii sharciyaqaanka ninkaa saaxiibka qabrigaan ku dalandalay maxaa soo noolaynaysaa waxaad yeelaysaa naftiisa la ogol uu soo gila qadkeeda fiicnaan leed waxa weye aamin waa disalaamaya iga dhawaale ahaada weli waxaan arkay ma aha dood oo qofkii su-aasha la weydiiye qof igu soo gelin qofkaan laleeyahay weli ana ma ana arag waxaan rabaa walaalkey quraan jecel waa dhegeysanaya horena waa u dhegeystay anigu keliya waxaa kale oo hadda aan dhihi kara male qodob dastuuri oo hadda uu soo qaatay mabaadida federaalka uu soo qaatay mabaadida federaalkana waxay dhigay degmooyinka iyo gobolada la aqoonsiyaya inay yihiin kada kada ra-iisul wasaarihii maalintaas dastuurka markii la qoraayo observice-ka ah goobjoogka ah saxiixaha ka ayaana maanta madaxweyne ka asigaa gartayna noqi doono soomaalida waxay tirahdaan garta inasa weynaa loo geysan jiray waatan la yari keliya waxaan aan kasoo qaadanayaa heestii binti cumar gacle anoo beled xaawa jooga haddii boosaaso liiga baaqi heestii aheed ayaan kasoo qaadan karaa marka waxaan leeyahay baashaan cunfi iyo qabiil soomaaliya way kusoo burburtay dhibaatadeedaan aragnay cid ka badbaadaysaa male dib yaan noogula celin qof kastoo aqoon-yahana qof kastoo fahan dawladnimo le meel intuu fadhiisto dhabarka oo dhafoorada qabsado ha ku fikiro maxaa qabiilkuu taraa muxuu faa'iido ahow leeyahay intaas xilka aad haysaa berito jinyeerka soo koraya dadka maanta soo koraya kaa wareegaya siyaasadda waa qor usudhiib 23 SYL nin kama noolo dawladdii maxamed jaadore dadkii iyo maxaweye iyo rayidkii iyo wixii kasoo dambeeyey dadkii oo dhan way tageen jiil yar baa maanta hay gees caddaas way wasiir uu ahaay dawladdii mudan madaxweyne cabdullaahi yuusuf maantana caasi uu meesha kugubahaya war waxaa xaggeen u soconnaa xaggeen ka nimid aan isweydinay intaa calan la gubaa calankii astaanta qaranka wallahi ilaah baa igu magaca allah ku dhaaranaya calanka soomaaliya oo la gubaa wuxuu iiga daran yahay wiilkayga oo hortayda lagu dili waayahay xildhibaan jesow hadalka haddaay aad sheegto haddii dib aan u laabto waxaad tiri xilka axmed madoobe wuxuu ku ogyahay bisha agosto haddii laga hadli waayena tallaabaan qaadaynaa waxaa moodaa weli waxaa moodaa hanjabaad inaa wadaan weli oo aad jubbaland iyo hawshooda ku mashquulsan tihiin dadkayna meel calanka lagu gubaya shacabkii soomaaliyeed ininku hoos noolaan muwaadin soomaaliyeed weriye oo ahaatahay meel calankii soomaaliya lagu gubaayay dadka la joogana maxaad umalaysa wallahi markiid weydiisay ummadii gadaaday samaysay ka waran wasiir markaad tiri waxaan ka sugaya waa laynaynaa been makuu sheegaya wax kaloon ka sugaya male nasiiba ulahay laakin calankii meelay ugu qoran tahay alxaasil warkii oo dhan waxaa weeye hada maamul jiro oo dhisan ayaa hadda waxaa leedahay ku hanjabaysaan inaad burburinaysaan mar kale hadii dawladda soomaaliyeed aan ogoleen maalinteeda ha suguto waktigeeda ha suguto dalkan haddaan anaga gaarsiin waayna jiilka naga xigaa gaarsiinayo nin dallana dalkiisa uga fulin mayso ilaa uu qaranka soomaaliyeed ku xirmo laakiin xildhibaanadii baarlamaankaa tihiin oo wax sixi lahaa haddii ay wax qaldan yihiin marka inaad hanjabtaan soo laguma fiicno oo maamul jiro aad u hanjabtaan aamin waa su-aal fiican ood u weydi aamin waa su-aal fiican ood u weydi mar haddii intaan wax saxayno oo aan taswiirka soo daliilsanayno oo mabaadi'dii noo taalla aan soo daliilsanayno ee calankii soomaaliya la gubaayo aamin wax kale oo dahan ma laha way wasiir raalli ahaan waya dooda muuse cali jaamaca idinkula jira aan isagana dhinac ka siiyo muuse waad maqlaysa raalli ahaada fadlan cafwan raalli ahaada dooda muuse cali jaamac garyaqaan muuse cali jaamac ayaa idinkula jira isagana aan wax ka siiyo maxaa kaaga baxay muuse marka hore horta odayaasha waan salaamayaa waxaana jeclaan lahaa in asaabta xoogaa hoos loo dhigo wax kani waa dood muran weeye dadku waxay u kala baxaan muran yaqaan iyo dood yaqaan iyo garyaqaan waxaa fiican in laysu keeno dadka garyaqaanka ee kala gar qaadanaya qofkii garlena la siiyo qodobkiisa qofkii qaldan la yihahdo waa qaldan tahay horta dooda saasay ku wanaagsan tahay anigu waxaan dhihi lahaa arrin baa dhacday annaga soomaali waa nahay marxalad kala guuraan maraynaa marxalad aada u adag baan maraynaa magacyagiia dhulka lagu jiiday wax walba waa naga dhumeen waxaan rabnaa inaan dib usoo noolaano
waxaa la isku dayay tallaabooyin lagu yageelo dawlad goboleedyo dib loogu soo laabto ma qabo inay tahay saxa keliya inuu kaas yahay laakiin haddana waana sankan ala ka geliya waanu ogolaanay dawlad goboleedyada waxaa lagu soo dhisaa qabiil iyo jabhad iyo qurun kulli waxa waaye khilaafaad iyo waxa ku jira iyo qaladaad oo turxaan bay leeyihiin marka waxaa fiican dadka raba inay wax saxaan oo itijaaha saxa soomaaliya loo orientaareeyo oo qabiilkan iyo jabhadahan iyo qurunkan laga baxo kow horta waxaa loo baahan yahay tanaasul iyo dulqaad hal qodob oo yar oo qolo ay qalado haddii lagu dhego dastuurkan haddii reer kismaayo umayan codayn puntlandna umayan codayn marka la dhamaystiro oo dastuur noqdo sharci ah oo ummadda soomaaliya afti ku qaadato horta markaasaa miiska loo garaaci karaa hadda waa draft kumeel gaar ah waa lagu shaqaynayaa waxbaa laga bedeli karaa waxbaa lagu darayaa doodiisii hadda baarlamaanka ka socota horta waxaa fiican jesow inuusan muqadas ka dhigin qodobada ku dhigan ee ah waa qodobo talo ay mataqaana dadka la gaadhay saasayna noqotay arrimaha degmooyinka marka laga hadlayo waxa weye dadna waxay wax ku qaybsadaan 4.5 dadna waxay ku qaybsadaan degaanka waa laga hadli karaa degaan rasmiya dastuurka wuxuu u aqoonsan yahay siyaad bare waktiguu joogay wixii degaan ahaa wixii ka baxsan waa khayr sharci marka sharciyadan ka hadlayno wy hay laakiin haddii mataqaanaa dad ay dhaheen annaga dawlad baan samaysanaynaa xul baan samaysanaynaa waxaan ku beesgaraynaynaa maxaa la dhahaa degaamo hal magaalo iyo laba magaalo oo dad lagu soo magacaabo ani horta dib weyn oo bilaha uma arko big dealna ma aha waxaanu u ordaynaa in dadkan la gaarsiiyo inay gaaraan maalin one man one vote inay codeeyaan oo dadka xaqa leh oo ay rabaan inay maamulaan hay maanta marxaladaas kala guurkaa baanu u soconnaa waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa kan ka dhacaya meel walba waxay ka dhacaan puntland waxay ka dhacaan jubbaland waxay ka dhacaan meesha u ka yimid jeso oo hiiraan hadda waa lagu kala kacay gobolada dhexday ka socdaan koonfur galbeed ay ka dhacday wixii waa khariban yihiin wixii marka si loo saxo waxa fiican meelaha yaryar oo turxaanta oo cunfiga keeni kara in loo gooyo oo wixii dadka isu soo dhaweyn kara oo midayn kara in la qaato baan anigu ku talin lahaa baarlamaankana waxaan jeclaan lahaa inuu mawqifkaas garaaco waana mahadsantiin aada umahadsan tahay sharci yaqaan muuse cali jaamac xildhibaan jesow aan siiyo wasiirkan waayaha jesow waan dib ugu laabanaa raalli aho wasiir waa kuu soo socdaa wasiir raalli aho waa kuu soo socdaa jesow aan siiyo haye maxaa ku darsan lahayd muuse jaamac waa mahadsan yahay walaal waa runtii waa sax in wax badan la xiriiriyaa inay fiican tahay laakiin waxaan kuu sheegaya walaale hadda waxaad soo qaadatay hiiraan oo ani aan ku dhashay waa sax hiiraan aan ku dhashay degmada buluguurta laleeya aan ku dhashay gobolaa loo magacaabay aniga jeso waxaan diiday in dastuurka loo hogaansano dad baa aaminsan inay laba gobol hiiraan tahay oo lasku dhiso aniga dadka diidanaan kamid ahay haddaba saxaafad ka fiican ay maqan degmadiin ku dhashay oo gobol loo magacaabiyo aan diidanaya in waxaan u yeelaya waxa weye berrito waxaa laga yaabaa haddii aan u ololeeyo jeso balfiirihi waxa uu samaynaya la yihahdo reer boosaaso ay kacaan reer gaalgarooba ay kacaan reer galguduud ay kacaan meel walba laga kaco la yihahdo gobolkaas gobol ma aheen la yihahdo Bye.
kale kulanti wanaagsan dib aan ugu soo laabanaynaa barnaamijka maan hadal gabagabadii ayaan soo gaarnay halka u gudagalaynaa hase yeeshee xildhibaan jeesow aan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo xildhibaan jeesow qaramada midoobay EUda midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD waxa ay war qoraal ah oo ay si wada jir u soo wada saareen ay ku baaqeen in si wada jir loo xalliyo khilaafka ka taagan maamulka Jubbaland waxaana ay sheegeen in hadda maamulkaasi uu sameynayo horumar badan sidaas darteed arrinta si degdeg ah loogu qumo baaqaas sideed u aragtaa aad baa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa garyaqaanka waa mahad celinaya asaga u bilaabay dalka faragelin fara badan iyo dhibaato inay jirto waxbaba nagama halawdeen cidna hadday meel kale naasn qabin waxba nagama halawdeen Soomaaliya hadda ayaa leeyahay waxaan leeyahay maalin way beesha caalamka waxaa laga dheehan karaa in ummadda Soomaaliyeed meelna inay u socotay aan la doonayn sababtoo ah waxay ladi ku tahay ilbaaxnimada beesha caalamka ay sheegan jirtay dimuqraadiyadii wax walba ayay ladi ku tahay go-aan baarlamaan oo gaaray oo qaraar baarlamaana maba laga hadlaba hadda maanta shalayto iyo waxaan jeclahay inay daraas ayaan jeclahay baarlamaanka Ingiriisiga fadhiistay waxay dhaheen dadka reer UK ama reer Ingiriis waa inay u dareeraan doorasho oo ay ama ugu mid ahaanayaan European country ama ay ugu go'ayaan lagama hadli karo waa qaraar baarlamaan la gaaray baarlamaankeenana baarlamaanada caalamku ka la mid yahay muhiim waa marka annaga Soomaaliyaan nahay in tuulo kasta ay tahay beesha caalamka ay aqoonto war ilaah baan idinku dhaariyay saxmiya haddii maanta tuulo yar oo salaglada hadda aan ku doodayno ay dhahdo anaga waa go'nay beesha caalamkana wayna aqoonsan tahay saxmiya ama wax baan dhigtay beesha caalamka ay aqoonsan war Soomaaliya 1960 ayay beesha caalamka aqoonsatay inay aqoonsi u baahan tahay walaa dawlad cusub oo dhalato walaa wax kale waxay aqoonsi ugu baahan tahay mala laakiin maamulka Jubbaland iyo tuulada isku mid ma fiiri nadiif calan babanay ayay waalidiinteen ugu sideen kaasaanan haysanayna kaasaana anaga dantayna ay ku jirtaa wax qoraal ay beel caalam samaysay waxa anaga dan iyo xaajiga maglayna baarlamaanana ay go'aankayna waa gaarnay waana fulaya dawladdan kula xisaabtan hadii fuli waaysan waa way isla su'aashan aan si wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubbaland hay wasiir ninka leeyahay saaxiibkay Yeesu waa riyoonayaa in filim dhamaaday buu ticket u jaranayaa waa sababta baarlamaanka uu sheegayo 275 ani waxaan qabaa baarlamaan dayday waayaan qabaa 275 waayo sababta qof qaran aynay jirin hadda uu sida xakan kartaa baarlamaan 3 sano oo kumbaleeta miinde inuu lid ku ahaado Jubbaland hal rido Jubbaland sidaan waay kaliya uu ku noqdo war dalkan shaqo wasiir qaramada midooba baaqay soo saareen sida u aragtaan dastuurka wax badan ka khaldan yihiin korkiisa ku shaqay amniinda ku sameey qodobada iska soo horjeedo xagaaga dan ma aqoonsanida calankiisa xagaaga dan ilaa maalintii ardi sababa la tagaa ilaa afka now inuu ku haayo Jubbaland qodobkana laga bedelo Jubbaland madaxweyne ma leh Jubba hal la yiraahdo baarlamaan loo ma dhisi karo dowladda loo ma dhisi karo degmooyin ma samaysan karto horay uma socon karto war wax aqliga galaya ma aha ani waxaan leeyahay dastuurkiina 99% wax ka khaldan yihiin dastuurka korkiisa ku shaqeeya ama meeyda ku sameeya wixii kala ah iyo wixii tayo ah sara dawlad goboleedyo way aad u mahadsan tahay iyo tobanka dawladan dhexe waxaad u baahan tihiin dawlad goboleedyada u baahan tihiin waa mahadsan wasiir kama muuqato waxaan u malaynayaa dawlad goboleedyada inay iskaashadaan oo higsiga cusub iyo tobanka hawshooda qabsadaan idinkuna waxaan u malaynayaa yaasiin lagama janaato idinku bukadaan ka cabsana oo meel cidle ah way wasiir aad u mahadsan tahay sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac aan siiyo
وايا وزير دبان kugu soo laabanaa sharciiqan Muuse Cali Jaamacan si halkan waa gudagaleena arintan maxaa caqabada oo ka iban karto xildhibaan sharciiqan Muuse iyadoo dhawaan xilliga 2016 la gudagalay higsiga Soomaaliya maxaa arintan emotionka ka dhanka maamulka Jubba maxay keeni kartaa ayaa isleedahay oo dhibaato wax weyn oo bila ah ma keenayso maxaa dhacay de waxaan arinta Soomaaliya iskale waana la rogrogayaa waxa la yiraahdaa hadaan la rogrogin rag ma helin waa hadeer kulay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa guddi heer wasiirad sameeyay ra'iisul wasaaruhu uu tagay uu ka soo noqday waxa kan wax dad ka dhaxeeyo waay xalna waa loo helayaa laakiin xildhibaanadu waad maqlaysaa iyo xildhibaanadu waa ku adkeysanayaan waxa weeye Soomaaliya ma kala maarmayso ama Jubbaland joogo ama Koonfur joogo ama Puntland joogo waxay u baahan tahay inay midoobaan oo sharaftoodii iyo karaamadoodii ay la soo noqdaan qarannimadoodina dib loo soo celiyo arrintaas waxaa loo sameynayaa sacrifice badan yani juhdi badan baa la gelinayaa wixii khaladaad ah oo turxaan ah oo ibni aadan aan nahay waxa weeye qalad waa dhacaya wixii qalad in la saxo wey waxaa la rabaa sida ugu habboon in loo saxo waxaa la rabaa sida ugu hufan in loo saxo waxaa la rabaa sida ugu macquulsan in loo saxo waxaa la rabaa sida dadku ay ku wada qanci karaan ilaa xad oo raalli isaga yihiin in loo saxo layskuna afgarto ani xildhibaanada waxaan kula talin lahaa barnaamij aad u weyn oo fog baa idin sugaya anada waxaa ii muuqda kulley waana qaldami karaa lakin ani mooshinka waxaa iiga muuqda cunfi waxaan dhihi lahaa siyaasadda iyo cunfiga hala kala saaro haddii qalad uu jiro oo la arko qaladkaas inuu minor yahay waxaa la rabaa in indhaha la isku qabsado oo mid ka weyn la saxo laakiin aniga waxaan u arkaa hadeer Soomaali dib u heshiisiin looma samayn dhib badan baa kala gaadhay waa la islaayay waa la isqoonsaday waa la kala fogaaday ani magaalada markaan ku dhashay ku koray xamara wax ku bartay haddana maxaan joogaa Qardho ma garatay hantidayda dowladkayga waxayga waa ka nimaanay laakiin waxaan rabaa Soomaali ma kala maarmayso halaga shaqeeyo wixii dadka isu soo dhaweyn kara wixii dadka kala fogeyn karana meel gaar ah la dhigo aad u maasanta wasiirka ganacsiga aan siiyo gees cadde wasiir arrintan in loo qumo oo dadaal la sameeyo raali ma ka tihiin idinka haddii aad tihiin maamulka Jubbaland 3 sano ayaan daba taagneen annagu dawladda dhexe iyo baarlamaankeedo prime minister ridiyo wasiirkan xilka ka taabiyo safaaradan baabi'iyo inta horumar la sameyn lahaa waxaa ku jiray way iska daba taagneen madaxweynaha Axmed Madoobe waxaan waxa la daba taagnaan kara ma ahayn wax yeelna ma waa daba taagnaanaynaa bal xal un baa la heli doonaa sidana laha 3 sanaan ku jirnay maanta waa u adkeysan weynay waxyaalaha ay ku jiraan baarlamaankan 275 waxay ku jiraan waa u adkeysan weynay waayo sababta ma doonayno in xagasho iyo dhibaatooyin joogta inaan ku jirno mid aan u dulqaadan karno maaha ayaguna dhibaato uma aanan rabin annagu dhibaato isuma aanan rabin dawlad goboleedyada kale uma rabin iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed in la yeesho horeyna loo socdo dalku dadka waxbarasho ay helaan scholarship ay helaan aqoonta la siyaadiyo bangiyadii la dhiso doonariskii oo noo heelan wax laga qabto UN-kii wax laga qabto wixii tala aan la wadaago ayaan boqolkiiba boqol ayaan doonaynay laakiin maanta derbiga ayaan tagnay waxaan leenahay jeesow baarlamaankaadii dawladaada xamar ha kuugu xirnaadaan ma doonayno annagu waxba ku fali mayno derbigaan tagnay mar haddaan derbiga tagnay ma doonayno annagaa isku tashanayno wixii canshuur ah aan heli karno wixii doonariska aan ka heli karno inaan shiilano wasaaradda laakiin dawladda federaalka ka mid yihiin wasiir haddii aad dawladda iska daysaan maxay idin suuragelaya ayadaana diiday annagana waa diidnay wax ku fariin waayo sababta maalin kasta hashu meeshay isbitaal lagu qalaa rujaalna 10 jeer god lagama qaniino hadda kadibna la qaniini maayo gacanteena waxaa madaxweynaha markaan ila madaxweyne war waxaan aan iska gooy maya gacan aadan gooyn karin waa la shumiyaa iska daaya gacan aadan gooyn karin waa la shumiyaa iska daaya gacan
boqol iyo 200 iyo 300 ay gaaraysaa maalin kasta inaan nimankaan aan nidhaahno waa weysaysanaynaay ilaa iyagu salaada ay ka galaan annaguna aan iska sugno duhurkiina naga tago casarkiina naga tago maqribkiina naga tago waa maasanta wasiir xildhibaan jeeso aan siiyo xildhibaan sideed u aragtaan halka hadda ay wadaan madaxda dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha walaalkii asiga soo dhaxgelin bas waa badbaadi waaye marka waxaan doonayaa marka ugu horreyn dhammaan baan u mahadcelinayaa odayaasha marlabaad mar saddexaad iyo dadkana dhegeysanaya ee reer Puntland kolley xamar weli soo ma gaarin ilaa aalada kale lagu shubo dabcan dadkana dhegeysanayo waa sagaal gelinaya hadal waa inay isku soo laabanay runtii looyarka ama garyaqaanka waa mahadsan yahay in Soomaaliya la dhowro waa wax waajiba waa camba bislaadiyo oo kale waa dareemi karaa in mar walba haddii tilaabo la qaado cunti loo qaadan karo laakiin waxaa ka weyn inaan is aaminin wallahi haddaan isku aaminayna jeeso isku aaminayna maalintii aan tagnay القبورة هذا ما سأوكاد وزير هلا سميه دك على صوبه اللي سدوا دك على صوبه هلا جرجروا دكوا على صوبه هلا جرجروا isuma imaan karno barlamaan ma idin wax oo maalin kasta barlamaan oo qaylinayo buuqayo mooshin iyo baraayo sameynay prime minister kan ku dhigeen annagu arinta kuma jirno dawlad Jubbaland la yiraahdaan cusub 16 aan wax wada qabsan karno waa qabsanayna laakiin barlamaanka ee 275 ee mooshinka quudanay مساعدة أي كاتان إلى عكس أي كاتان بأن ننزل موشين كريه قودنا أنه تلاقوا درسان ما إنه اللي بنجلسوا سيدي حلقة كجرا يا أسلاد هاي هذا واقع international UN كوا عندنا أنا قاعد تدورنا اللي يدخلنا أنا قاعد شيلنا وسارة maareeyaasha karsadaan kaabayaasha dalka waa dhisanay inay karsadaan baarlamaanka hore ugu socdaan speakerkooda iyo deputy speakeryaasha shaqadooda ay ka nacadlagaadayo uu la yiraahdo al-qabuur waay al-shabaab waay al-islaam waay war muslimnimo aan lagu dhowraynin iyo muuminimo khaasa gaal maxaska ku dhowrad majirka ka dhaamalay jeesow iyo annaga wax nagama dhaxayn karaan iyo 274 kiisra nabad Allah yeelo خط واصل دوري ميسو بابور نو إيمان مايو وشيء ولا وسيلة ما نقدر نقول هاي وعوايا وقت عنيك نقول ور official أول وهي ينادو دولة نمرين أنا أنكم رغمين أنا جاي قارنو وايه وما حسنت وزير وما حسنت هاي قبل دي برنامج كان سو قارني اللي بنجيسو sideed u aragtaa in xal laga gaaro arrintaas hadalka daawo waaye hadduu ku daawo waayo walaalkay hadalka inta badan eelkiisu waa jeclaan lahaa wax mu arkay aan haysamana lugoynaysa adiga jeeso nin wax arka ma muxuu arkaa jeeso waxay uga caddahay waxa jeeso waad wareysanaysa maxay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay 30 second ayaan siiyo xalku muxuu ku jirayaa isleedihiin sidaas arintan xal looga gaari karaa xalka wuxuu ku jiraa dalka inaan loo dayno shakhsi noocaas oo kala oo saxaafadii lagu ixtiraamay oo loo keenay haddana asoo weliba sheeganayo bal wasiiraan ay u leeyahay dadka noocaas inaan dalka loo dayno garyaqaankana waa imaqlaaya qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed waa imaqlaaya ilaahay dartiis marqaati idinka dhiganaya dadka noocaas iyo kuwa kasii liitaa inaan jibooyinka loo day jibooyinka Soomaali shanta beelood waa weerargeyn hal uu kala badnaado hal uu kala yaraado xaaladeeda xaalad caadi ah ma aha dadka noocaas intay garwadeen u yihiin
arrintan sidee xal looga gaari karaa xildhibaan Juuso ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeeda waa muqaddas ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeeda waa muqaddas waxaa la rabaa inaad dowladnimadiina aad adkaysatiin waxaan dowlad ahayn oo idin deeqay shacabku malaha shacabka Soomaaliyeed santa beelood iyaga xildhibaanada soo xushay iyaga keenay qabiil aan saamigiisa ku leeyna male waxa weeyaan is-aaminaada waa shay muhiim ah is-aaminaada waa shay muhiim ah dadka waan ogahay in la kala irdhoobay in baas balaaya ay nagu dhacday waan ogahay waa inaan uusu soo dubnaa waxa naga gaarayna waan ognahay weliba dhibaatada naga gaartay waan ognahay 25 sano aan qaran la-aan ahayn oo aan burbur ku jirnay ilmiheenii waagaa rasashay ayaa maanta qaangaara oo siyaasadda qaarkood ay ku jiraan waxaa loo baahan yahay inaan qarannimadeena aan adkaysano inaan dadnimadeena aan soo xishino sharaf waxaan ku leenahay heybad waxaan ku leenahay dhulkaa aan leenahay aan heybad ku leenahay waa inaan ilaashanaa dadka nuucaan oo kale waa inaan iska qabanaa fadlan iga dhabaysta waa mahadsantahay xildhibaan Juuso haye wasiirka aan siiyo gees cadde soo koob aad iyo aad baad u mahadsantahay walaashay meediyaha oo aad iigu yeertay waa kaaga mahadcelina Juuso ninka la yiraahdo iyo 275 raadiyaha la hadal Juuso raadiyaha la hadal waxa waaye aniga markaad i wareysato barlamaankaasi maalintii ay odeeyeen ayay u dhamaatay xildhibaan Juuso raalli ahow raalli ahow xildhibaan Juuso calanka Soomaaliya la guur garaada lagu mehelo wallahi billahi wallahi xabsiya ku jirta adaa daweeno amal hafiiri xildhibaan Juuso fursada sii wasiirka ha hadlee fadlan raalli ahow ku dhageysanaya si asbuulaysan iyo dadkiina wixii uu dan ku shaqeeya idinkiya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenyaasha iyo golaha wasiirada waayahay raalli ahaada sharciyaqaan muuse aan siiyo muuse cali jaamac xalku muxuu ku jiraa gabagabadii barnaamijkaan soo gaarnay xalku wuxuu ku jiraa horta ugu horreyntii in la is ixtiraamo nin walbana ra'yigiisa iyo waxa uu qabo in lagu ixtiraamo in la ilaasho midnimada ummadda Soomaalida in loo safar fog loo qaato sidii dadka Soomaalida la isugu soo celin lahaa dib u heshiisiin dhaba loo samayn lahaa ummadana mar kale karaamadeedii iyo sharafteedii iyo qiyamkeedii dib loogu soo celin lahaa waana mahadsantahay aad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala hayeen wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubbaland Xasan Isxaaq Yacquub Geesa Cadde oo qadka taleefanka Kismaayo ugu jiray xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayuu qadka ugu jiray iyo sharciyaqaan Muuse Cali Jaamac oo isna qadka taleefanka Qardho ku jiray dhamaantood waxay martu ahayeen barnaamijka maanhadal oo maanta aan ku soo qaadanay mooshinka ka dhanka ahaa maamulka Jubbaland oo xildhibaanada baarlamaanka dhawaan ay meel mariyeen waxaa barnaamijka idin socodsiinaysay anigoo ah Aamin Ladan Axmed idinkoo kala socday dhammaan xarumaha daljir ee gobolada dalka si gaar ah wuxuu idinkaga imaanayay stuudiyaha daljir ee Boosaaso waxa barnaamijka soo saaray Cabdifataax Umar Geedi waana farsamada hagarlaaneed ee injineer Xasan Cali Mursal dhamaanteen nabadgelyo